أضد ولا وريدين قاسو جلسوا لعكت أقا تحرل مع ماي عرفت ما ها أدس كغفيرية مثل لو وناك هذاك هذا شوف نكو فيرنا مرها سو أنت بدن قفات صارمت هاي صفة فيو كويس فيو لازم العكت أتوقعات صح فيو عاية فيو أرنحنا مرها تكشف joogana loo yaqaano Baba Gandaria ayaa u hanjabay guud ahaan gabdhaha TikTok ee isticmaalay ee ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo ballan ku qaaday in haddii uu arko gabar isqaawinaysa isla markaana TikTok ka soo muuqata in uu dili doono. Axmed Rashiid ayaa inta badan laga baqaa marka la joogo magaalada Nairobi ee dalka Kenya guud ahaan dadka social media isticmaala ayaa u arkay in Axmed Rashiid uu yahay Baba Gandaria markii Hindiya la joogo waxaa loo yaqaanaa laadarinta ugu qatarsan ee aflaanta jisha isla markaana weliba keena aflaanta horarka aan laga cabsan. haddaba Axmed Rashiid waa ninka Sharma Boy u diiday inuu Nairobi tago si uu kaga qayb galo showga habeenka sanadka cusub taasi oo keentay Sharma Boy uu ka baaqsado inuu tago Nairobi. Axmed Rashiid waa nin gacan saar la leh Daahir Cali Sow waa nin shilimaad ka qaata hadba qofka markaasi uu rabo inuu wax u qabto laakiin hadda waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu sheegay in gabdhaha TikTok lacagta ka sameeyay bataatanba ay cunaan ama ay qaataan lacaga xaaraana waxa ay ku keeneen iyagoo isqaawinaya jirkoodana muujinaya waxa uu sheegay in ragga sanadkan jira aysan fiirsanaynin muuqaalaha idinka weliba asuran haddii aad soo dhigtaan taa beddelkeeda waxa aad isticmaashaan fikir kale uu ku aaday in isqaawisan si aad lacaga u heshaan. waxa uu sheegay inay qalad tahay wax waliban waxaa ka muhiimsan sharafta waa siduu sheegay Axmed Rashiid oo waliba inta badan xafladaasi ay goobjoog ka ahaayeen gabdho caan ka ahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya aadna looga yaqaano. gabdhaha munaasabada ka qayb galay ayaa u saacabatumay Axmed Rashiid iyagoona ujeedkoodu ahaa cabsi ay ka baqayaan Axmed Rashiid laakiin aysan ka ahayn daacadnimo iyo waliba sidii markaasi inay ku qanacsan yihiin hadalka Axmed Rashiid. laakiin Axmed Rashiid ayaa hadalkiisa laga dhadhansanayay hanjabaad ku aaday inuusan bataatanba arki karin gabar TikTok ku jirta oo weliba qaawan isla markaana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddaba gabdhahaasi maadaama ay lacag ka sameeyeen TikTok waxa ay u badan tahay inay ka soo cararaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya markaasi qorshahoodu yahay in ay tagaan meelo kale amaba ay soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya si ay u duubtaan muuqaalada markaasi isleeyihiin dadka waa uu ka gadmayaan. gabdhahaasi ayaa waxay isugu jiraan kuwo muuqaalo anshaxumaha ku faafiya barta ay ku leeyihiin TikTok-gooda iyagoo markaasi ka madadaaliya dad ka badan 500,000. haddaba saaxiibayaal qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa fikir ahaan waxaad ka qabto hadalka Axmed Rashiid ee ku aadan in uu dilayo gabadhii qaawan ee uu ku arko baraha TikTok ay ku leeyihiin isagoona sheegay in marka ay duubayaan muuqaalo ay soo asturaan si markaasi jirkooda aysan meelna ka qaawanaanin. haddaba saaxiibayaal kulankaasi uu Axmed Rashiid ku qudbeynayay waxaa goobjoog ahaa gabdho tiradooda aad u badan weliba markaasi hadaladooda la maqlayay iyagoona u saacabatumaya ee dhahaya waad ku saxan tahay deetana markii uu Axmed Rashiid masraxa ka degana bilaabaya muuqaalo iyagoo isruuxaya weliba jirkoodana meelo badan uu ka qaawan yahay taasina dadka badankii siyaabo kala duwan uga hadleen. haddaba Axmed Rashiid maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa nin markaasi ka soo muuqday social media muuqaalana soo duuban laakiin marka hore laguma aqooni dhaqankan waxa uu ahaa nin dhunta gambada laakiin hadda waxa uu keenay inuu ka qayb galo munaasabadaha ay dadka isugu yimaadaan. haddaba saaxiibayaal waa kan Axmed Rashiid uu hanjabaya gabdhaha TikTok isticmaala iyagoo qaawan muuqaalo duuba. ninkii markaa soo geliso adoo dooda wareejin markaa soo geliso lacagta aad qaadato xalal ماي عرفت ما ها أدس كغفيرية مثل كلو وناك هذا كهذا شو نكو فيرنا مرها سو أنت بدن قفات صارمت هاي صفة فيو كويس فيو لازم العقد أتوقعات صح فيو عاية فيو أرنحنا مرها تكشف حولها أقاطة كم عسكري شرعي يكوي حوله كقاطة هذا قدرنا ملينا هاي نروح على سؤال دين قبل اسكول لما يسوق جامعة سوقان سكول سوقان إسكاميسو تيجي جريم أدرك أبد إدريد حوارت أوف إلا يكون دكتور هذا ما يفتيه ده أبي نوين ملكمو قبله يسوق يكون ده معله يابله قبله هاينا قبله هذا قبله هاينا
قبل قولي كلي دقل ها يجي قبل دروبه قول أنا قبل ضربنا هن قولي كلي ما يدعي جري متى ضربتها راشين بيتسجل تقولي غير الحديث ليه الصحفي المركز سعودو دول الصوماليين قونا انت وسعود سعادة عاوز سعود هذه الصاد ما حد دون يسع 10 دولار بدور كينيا بوليس صار قبلكم مقرعيها سو كينيا مركز الله هذا كل ما هو بحياة صوماليا ما هو بحياة انت بدل ما صوماليا وجوه بدينا كينيا وجوه لكن مثلا صوماليا وجوه معهم علينا لجيرو ما يكين قاضي انت جو سمانتينا كتليا تاسوا تاس تان لواد وحياها آدي يوسف كردسمي لقد كان الصومالي كبحسن arrimahan maalmaha aad u soo kordhay I don't know waxaa la dhahaa social media okay dadka inta badan xaaraanta waxay ku tilmaamaan askarta adoo niikiin markaad soo geliso adoo dabada wareejin markaad soo geliso lacagta aad qaadato xalaal miya may xaraan soo maaha aad iskaga fiiriya midda kale wanaag haddaa ka hadasho ninku fiirina ma laha soo inta badan qofaad saaran tahay sifa view ku hesha viewers lacagta aad ku qaadato صح view caaye view arrin xun leh markaad gasho xoolaha aad qaadato kan askariga sharciga ku yidhi xooluhu ka qaata taadaa ka darnaa malayna axmed rashiid oo u hanjabay gabdhaha isu qabiyo magaalada nairobi ee wadanka kenya haddaba hanjabaadan axmed rashiid hawada u mariyey gabdhaha isu qabiya kenya xagee buu u mariyey ma baraha bulshadu kala hadlay mise si kale ayuu ula xiriiray muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale axmed rashiid oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo furaya bulshadana soo dhexgalayo isagoo markii hore lagu yiqiinay in bulshada aanay ku soo dhex milmin oo meel gees ka istaagsanaa maxay tahay sababaha uu haatan u go'aansaday inuu bulshada u dhexgalo intaa in kasii badan muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan haddii allaweyne laga helaana idinla socodsiinaya idinkuna waa daawanaysaan u diyaargarooba iyadoo dhammaystiran sida hordhac muuqaalka baan idinkugu sheegay gabdhaha isu qaabiya wadanka kenya magaalooyinkiisa kala duwan nairobi ama bombasa waxaa markaan loo diray fariin aad u adag fariinta loo diray waxay tahay hanjabaad waxaana loogu hanjabay haddii aysan ka waantoobin isqaawinta iyo dhardhigashada in ay la kulmayaan cawaaqib xumo hanjabaadaha way kala duwan yihiin markii nairobi laga hadlayo in ay al-shabaab hanjabto iyo in axmed rashiid uu hanjabo waxaa miisaan culus in axmed rashiid uu hanjabo maadaama lala socday waxyaabihii kenya ka dhacay dilalkii iyo weliba dhicii kenya ka dhici jiray sida uu la dagaalamay una joojiyey maadaama aad la socotiin axmed rashiid miisaanka uu ku leeyahay wadanka kenya kaalinta bulshada soomaaliyeed ugu jiro walow dadku ay ku xantaan waxyaabihii uu sameeyey inay jiraan ama ku jiraan waxyaabo qalad haddana wax badan oo wanaag oo bulshada wadanka kenya ku dhaqan ee soomaalida uu sameeyey ilaa heer uu gaaray in laga wareysto idaacadaha ugu sarreeya afka soomaaliga sida laanta afka soomaaliga BBC da iyo weliba meelo kale oo aad u fara badan marka hore aan ku bilaabo axmed rashiid waa kuma goormuu soo ifbaxay bulshada soomaaliyeed ee wadankaasi ku dhaqan goormay baratay hadalkan haatan uu yirina xaguu ka yiri axmed rashiid waxa uu marka hore ka tirsan yahay askarta wadanka kenya si wanaagsan looma garanaynin laakiin waxa uu soo shaacbaxay markii magaalada nairobi ay noqotay bahlagaleen oo dhalinyaro soomaaliyeed ay bilaabeen in mindiyo intay qaataan dadka ay dhacaan kuwa masaajidada ka soo baxaya ay ka qaataan moobeelada ugu dambeyntiina ay dhacday in iyagu ay is ugaarsadaan iyaga isdilaan axmed rashiid xilligaas ayuu soo caanbaxay axmed rashiid waxa uu ka joojiyey wadanka kenya dhibaatadii markaasi ka jirtay ee ahayd inuu joojiyey dhaca iyo dilka halkaasi ka dhici jiray laakiin axmed rashiid waxaa lagu eedeeyaa in uu xumaan ku zuuliyey inuu xumaan ku zuuliyey taa micnaheeda aan ula jeedo dadkii dhibaatada geystay waxaa wanaagsanaa in xabsiga loo taxaabo oo la xiro oo cadaaladda la mariyo laakiin axmed rashiid isagii ayaa noqday maxkamadii maalin cad ayuu meel fagaaraha ku dilay saaxiib beeladad inagu cusubtii subscribe laha gambalelkan furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad hore inoola joogtana madaxaad inu saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talayo tusaale haddaad inoo haysaana qaybta commenti inoogu rog waa nagu naqan